ma ogtahay in aniga iyo adigaba aan khamri cabni waagan yarayn dawadan idin muuqata waxa la yiraahdaa maal qariib waxa la siin jiray ilmo walba oo calool xanuun ama cabeeb ama calool isma jir ay ku dhacdo laakiin waa dhaweyd ayaa la soo ogaaday in ay ka kooban tahay percentage aad u sareeyo oo khamro ah ilmaha markii waagi hore hal qaad laga siiyo dug ayuu oran jiray waxa ku dheer in ilmuhu maanta toolo dhan intuu hurdo iska qoslo hooyaduna markii aragto ayay inta qosasho dhigi jirtay maasha Allah malaa'ig baa ciyaarsiinaysa malaa'igtee waa ilmo cabsan ilaahu noo dibdhaaf dadka dawadan la siiyay waaga yaraayeen ku jirta adigu shantan wax hadaad mid uun leedahay waxa tahay qof lama helaan ama marle arag ah oo adduunka waad ku yartahay 4% dadka adduunka ku nool oo idil ayaa leh xudun banaanka taal 10% dadka adduunka ku nool oo idil ayaa leh suulka lugta ee Morton oo ah in farta dhexda ay ka dheer tahay suulka 1% dadka adduunka ku nool oo idil ayaa leh laba saf oo baalasha indhaha ah 2% adduunka dadka ku nool oo idil ayaa leh timo guduudan normally haddaad ka mid tahay dadkaas qof lama helaan ama dhif ah tahay 15% dadka adduunka ku nool oo idil ayay ka maqan tahay lafta gacanta si aad u hubisid inaad leedahay in kale fariirada iyo suulka isku qabo sida ku muuqata kamantiga noogu reeb haddaad dadka naadirka ama dhifta ka mid tahay dad baa soo qori doona timo guduudan baan leeyahay ogaada oo Soomaali ah falowda iga ilaaw gabadhan ka baro si dhaqso leh oo aad murqo ku yeelan karto adoona jim gelin gabadhan Mexicaanka waa 28 jir lagu magacaabo Linda Mervey waxa soo xiray booliska iyadoo sababta lagu haysta ay tahay inay wiilal sheekaysan jireen oo ay kala tageen ay 77,000 oo jeer wacday hal asbuuc gudihiis dulqaad yara balad ku aragta oo inta kaliya ma ahe waxay kala u dirtay 41,000 oo message iyo 1937 email 217 voice message ah iyo 647 bushqadood oo waraaqadaha caadiga la isu diro ah booliska marka ay soo qabteen waxa ay sheegeen in aysan weligood waxaan oo kala arag aniguna ilaa hadda ka wacaysay damiir daradiisa ayaan ka yaabanahay maxaad samayn lahayd haddii qof saas dhan ku jeclaado ninkan Ameerikaanka lagu magacaabo Steve Kamisar deymo badan ayaa meel walba looga lahaa asaguna maadaama uusan lacag hayn fikrad ayaa ku soo dhacday oo waxa uu sameeyay inuu joornaalada ugu caansan ku qortay xayeysiis ah inuu hayo dhar qalajiye ku shaqeynaya tamarta korontada uuna ku iibinayo xabadiiba $49 dadkiiba ku yaacay ilaan xariga waxay uga nastaan bay maqleen laakiin dadkii markii ay iibsadeen waxa ay ogaadeen in uu xarigi dharka uun yahay oo maxkamadii ay ku dacweeyeen inuu tuug yahay laakiin Steve qadiyadii waa ku guuleystay maxaa yeelay markii xariga dharka lagu waro qorraxda ayaa wax qalajisa maadaama gardarro lagu soo dacweeyay uuna ka guuleystay waxa kale la siiyay magdhow gaaraya 500,000 maskax shaqeynaysa wallahi deganaan asagoo dhigar isku ridin ama stress isku kicin ayuu deymihiis ka soo guday qof baa inta degdeg hadda isdhihi doona saa u gal ummadda Soomaaliyeed wallaana maxkamad lagu la koreyne Truusle Hospitalka almuhim anigu hadda waxaan idin hayaa mashiin korontada ku shaqeeya oo adoo gurigaaga jooga korontada aad ku qaybin kartid kaygu waa 30 kaliya falowda iga ilaaw ninka uu shaydaanka lafadiis wax ka soo bartay ninkan idin muuqda waa Jamaican magaciisa runtaana la yiraahdo ee Campbell waraaqad ayaa loo soo diray u sheegaysa inuu ku guuleystay baqtiyaan nasiib lagu qabtay dalkaas jaaizada uu ku guuleystayna ay tahay check lacaga oo gaaraya 158 milyan iyo 400,000 oo dollar Jamaican ah yaabku wuxuu ahaa markuu dhowr maalmood kadib aaday meeshii si uu jaa'izadiisa u soo qaato asagoo qaba horror mask sababtu u xirtayna ay tahay si aysan islaantiisa iyo caruurta iyo asxaabtiisuba aysan u ogaan in uu yahay ninka ku guuleystay lacagta oo TV-yada iyo waxaas aan wejigiisa laga arag oo kaligii si deganaan iyo raaxa ku jirta oo lacagta ugu ciyaaro oo aysan cidna weydiin lacag waxa uuna dalbaday in magaciisa aan laga shaacin TV-yada laakiin waxa la shaaciyay jaa'izadiina loogu qoray ticket numberkii uu watay Soomaali baad moodaa inay wax u galaan ninkan falowda hayga ilaawin